hawalwalin waxaa laga yaabaa in qaarkiin ay ka fikirayaan mustaqbalka. Ma ahan inaad ka walwasho, sababtoo ah nebiyaduba arri bay raaceen, kadibna ummado ayay hoggaamiyeen. mustaqbalka waxaa go'aamiyo Allah. dadkoo dhammi hadday isugu tagaan inay kuu sameeyaan mustaqbal fiican, marna kuma samayn karaan. ha ka murugoonin waxaa cuni lahayd, waayo waa wax uu Alle horay u qoray. keliya Alle u caabud siduu ku amray, isaga ayaa kuu irsaaqayo siduu kuu ballan qaaday. ma ahan inaad isku murjiso dhib yar oo ku soo gaaray. culays walbaa waxaa ka dambeeya fudayd. dhib hadduu ku soo gaaro, gargaarka Ilaahayna uusan degdeg kuugu imaanin, taas macnaheedu ma ahan inuusan Ilaahay kuu jeedin amase uu ku iloobay. toddobada dhul hoostooda wax ku nool Allaha arko. suurtagal ma ahan inuu ku arki waayo adigoo addoonkiisa ah. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu mar walba Ilaahay ka magangeli jiray walwalka iyo murugta. shaydaankuna wuu jecel yahay inuu murugoodo qofka mu'minka ah. haddii murugtaadu ay tahay hadalka dadka, ogow rasuulka Ilaahayba waxaa lagu dhibay hadal. asagoo rasuulka Ilaahay ah ayaa lagu yidhi waxaa tahay saaxir, faalalow, majnuun iyo hadal walba oo xun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo sabarsiinaya rasuulkiisa ayuu ku yidhi: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. waan ognahay inay laabtaada la ciriiryoonayso oo aad dhibsanayso waxay dhahayaan gaalada. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. u tasbiixso rabbigaaga adiga oo raacinayo mahadnaqiisa, kana mid noqo kuwa sujuuda.